Bismillahirrahmanirrahim. Soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan Maracadda Show. Waa 27ka bisha June sanadka 2026 maalin Sabti ah. Qodobada qaybtan aan ku eegi doonana waxaa kamid ah labada dhinac Iran iyo Mareykanka duqeynta isu idaarsadeen goobaha la beegsaday iyo wararkii ugu dambeeyay iyo heshiiska dhexmaray Lebanon iyo sidoo kale Israel. Xisbullah ayaa loo heshiiyay. waxaan kaloo aan eegi doonaa maxaa kordhiyay dhacdooyinka iyo weerarada ka dhanka ah dadka muslimiinta ee ku nool gudaha dalka Jarmalka. in ka badan 4,000 oo kiis ayaa la diiwaan geliyay kaliya sanadkan aan ku guda jirno. arrimahaas oo idil iyo qodobo kale ayaan qaybtan kugula wadaagi doonaa dagaalka dhanka Ruushka iyo macluumaadyo kale insha Allah. soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo Maracadda Show barnaamijka falanqaynta caalamka. mar kale isku soo noqdo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan. reer Djibouti hambalyo ayaan leenahay maalmihii xurriyadda ayaa lagu guda jiraa. waa 27ka bisha June markii Djibouti ay xurriyadda ay qaadatay. laakiin yaanay naga noqonin dabaaldegyada oo kaliya yani mare inaan soo qaadano aan dib u eegno halka aan joogno Soomaali halka hadii aan nahay iyo halkii aan joogi jirnay markii xurriyadda la qaadanayay. aan ku hormaro dalka Venezuela waxa la diiwaan gelinayaa dhacdooyin aad u naxdin badan marka la eego sawirada iyo muuqaalada ka imaanaya dalka Venezuela halkaas oo dhulgariir xooggan uu ku dhiftay toddobaadkan. in ka badan 500 oo ruux ay dhimashada sii maraysa ku dhawaad yani 600 oo ruux ayba kor u dhaaftay 50,000 oo kalena waa la weysan yahay. dadka samata bixinta sameynaya marka sawirada iyo muuqaalada ay la kulmeen ayaa argagax abuuray. qaarkood dadkii gacanta oo kaliya ayaa la arkayaa, qaar waxa la arkayaa madaxii oo meel yaala, qaarkood yani dhismihii oo ku dul habsaday. muuqaalada iyo sawirada laga diiwaan gelinayo dalka Venezuela waa yani dhacdo aad u xanuun badan. waan arki doonaa wax walba oo ka soo kordhay insha Allah. wali dawladaha caalamka ayaa u gurmanaya waxana la baadigoobayaa dadka ka maqan qoysaska kala duwan ee reer Venezuela. bariga dhexe aan eegno xaaladda bariga dhexe waxaad moodaa mar kale inay qatar ay gashay kadib markii xalay Mareykanka iyo Iran bay noo sheegeen inay duqeymo isu wadaarsadeen. arrintan waxay ka dambeysay kadib markii dawladda Iran ay sheegtay inay beegsatay mid kamid ah saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay dhanka gobolka. laakiin ka hor duqeynta inta la isu wadaarsan maxaa dhacay aan dib u laabano. tani maalintii Khamiista la soo dhaafay waxa si weyn loo falanqeynayay sawirada ka imaanaya saldhigga Mareykanka uu ku lahaa gudaha dalka Bahrain. Iran intii dagaalka uu socday saldhiggan waxyeello daran ayay gaarsiisay. malaha taas ayaa ka careysiisay Mareykanka iyo dawlado kale. wakaaladda wararka ama wargeyska lagu magacaabo Wall Street Journal ayaa Khamiistii soo bandhigay sawirada saldhigga Bahrain ku yaalay waxyeellada gaartay iyo sawirro dhanka satellite-ka oo la qaaday. khasaarihii Bahrain saldhigga ku yaalay ee gaare oo kaliya marka waxa lagu qiimeeyay ilaa 400 oo milyan hadii dayactir lagu sameynayo. wixii markaas ka dambeeyay marka warbaahintii si weyn ay u falanqeeyeen saldhigyadii Mareykanka iyo waxyeelladii soo gaartay. kadibna waxa ay warbaahinta dawladda Iran ay baahisay in ciidanka ilaalada kacaanka ee dawladda Iran ay beegsadeen mid kamid ah saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay gobolka bariga dhexe. goobta lama sheegin, saldhigga wadanka uu ku yaalana lama sheegin, laakiin waxay yiraahdeen saldhig Mareykanka uu ku leeyahay bariga dhexe ayaan beegsanay anagoo ka jawaabayna duqeyntii Mareykanka iyo goobta uu duqeeyo waan kula wadaagi doonaa. dawladda Iran marka waxay sheegtay inay isticmaaleen gantaalo iyo diyaarado daroonisa iyaga oo beegsaday mid kamid ah saldhigyada Mareykanka ee gobolka bariga dhexe sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay taliska ciidamada ilaalada kacaanka ee dawladda Iran. wixii markaa ka dambeeyay Mareykankana dhankiisa wuxuu sheegay inuu isagana beegsaday saldhigyo ay ciidamada Iran ay ku leeyihiin koonfurta dalka Iran gaar ahaan magaalada Sirik lagu magacaabo. Mareykanka waxay sheegeen marka duqeyntaas inay kaga jawaabayeen markii Iran ay beegsatay markab marayay marinka Hormuz oo diyaarad daroonisa lagu weeraray. markabkan shalay ayaa la sheegay in la weeraray. maalmo ka horna dhanka Cumaan iyo agaarkeeda markab ayaa la sheegay in lagu weeraray inkastoo xogaa markabkaasi laga yara gaabsaday. xarunta taliska dhexe ee Mareykanka marka CENTCOM loo yaqaano waxay sheegeen in raadaaro iyo xarumo muhiim ah oo xeebaha dalka Iran ku yaala inay duqeyn ay iyagana la egteen iyagoo ka jawaabaya duqeynta ay Iran ay fulisay. laakiin waxay yiraahdeen duqeynta markabka la duqeeyay ayaan anaga ka jawaabaynay. magaalada Sirig oo koonfurta ah ee dalkaasi Iran ayaana duqeynta ugu badan ay Mareykanka ay ku garaaceen iyagoo sheegay inay raadaaro iyo xarumo kale ay beegsadeen. laakiin faahfaahin dheeraada lama bixin. duqeyntan waxay u egtahay halkaas in lagu joojiyo labada dhinac yani waan joogaa in la isla ayaad moodaa.
waxaanoo idil waxay dhacayaan xilli ay shalay warbaahinta dowladda Iiraan ay baahisay macluumaad ku saabsan in Mareykanka iyo Iiraan ay sameeyeen qad isgaarsiineed oo ay ku wada xiriiraan si waxa maanta dhacayba aysan u dhicin si marinka Hormuz militariga iyo ciidamada Mareykanka isaga hor imaaneen iyo kuwa dowladda Iiraan haddii maraakiib la weeraro iyo haddii kale iyo haddii dhaqdhaqaaq la sameynayaba markii xiriirkii ama qadkii isgaarsiineed ee la sameeyay halkee ayuu ka baxay maxaana keenay in Iiraan ay duqeyso saldhig Mareykanka uu leeyahay Mareykankana uu duqeeyo saldhigyo military oo ku yaala koonfurta dalka Iiraan waa waxyaabaha la isweydiinayo maqadka isgaarsiinta ayaa laga weecday ama qadkii xiriirka ee la doonayay in lagu wada hadlo si aysan waxyaabahan oo kale aysan u dhicin dowladda Iiraan waxay dhankeeda sheegtay inay mar walba ku taagantahay dhaqangelin doonto 14 qodob ee la heshiiyay laakiin waxa dhacay waxay ku tilmaameen waxa la aqbali kareenin kadib qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Iiraan waxaana ay yiraahdeen mid kamid ah artikalada qodobada lagu heshiiyay ayuu Mareykanka jabiyay anagana waan ka jawaabnay laakiin wixii hadda ka dambeeyay waxaad muddo xaaladda halka in lagu dajinayo mana jira dhaqdhaqaaq kale wax walba oo soo kordhana waan kula wadaagi doonaa qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Iiraan hadii aan soo koobo way cambaareen waxa dhacay waxaana yiraahdeen Lubnaan waxa ka dhacay iyo koonfurta Iiraan waxyaabaha ka dhacayba waa jibin cad oo Mareykanka uu sameeyay oo Mareykanka iyo Israa'iil bay isla ogaayeen xalay waxaan idin la wadaagay inay Iiraan ay baahisay xogta ku saabsan in diyaarado dagaal oo Israa'iil ay leedahay ay hareeraha xuduudaheeda ay ku sugan yihiin ayna ka warhayaan inkastoo goobta si rasmi ana loo sheegin waxaana ku xigtay in duqeymo la isweydaarsaday saacadihii ugu dambeeyay madaxweyne ku-xigeenka dowladda Mareykanka ayaa dhankiisa warbaahinta la hadlay waxaana uu yiri Iiraan ma ahayn inay duqeyn ay fuliso hadii ay wax tabanayso heshiis ayaa la gaaray wada hadal ayaa heshiis lagu gaar waxay inay anaga noo soo gudbiso telefoon ay soo wacdo oo kaliya ayaa ku filnaa mana ahayn inay duqeyn fuliso laakiin hadii ay gantaal ay rido ama ay xabad rido anagana gantaal ama xabad ayaan ku jawaabaynaa ayuu yiri wasiirka arrimaha waa madaxweyne ku-xigeenka dowladda Mareykanka dowladihii gobolka ee dadaalada iyo diblomaasiyadda wada ayaa dhankooda dadaalkii bilaabay wax walba oo ka soo kordhana insha Allah taala waan kula wadaagi doonaa like sar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsan tahay say dhiirigelin inoogu noqoto fadlan ha hilmaamin inaad like saarto muuqaalkan Hezbollah waxaad moodaa in loo heshiiyay markaad eegto qodobada heshiiska ee lagu gaaray magaalada Washington oo dalka Mareykanka waxa jiray dadaal diblomaasiyadeed oo wasaaradda gaashaandhigga iyo arrimaha dibadda ee Mareykanka ay ka wadeen ama ay ku dhexdhexaadinayeen Israa'iil iyo sidoo kale Lubnaan Israa'iil hore si cad ayay u sheegtay faylka Lubnaan in madaxda Lubnaan ay kala hadli doonto oo Iiraan waxba uusan ka qusaynin hadda waxa soo baxaya in heshiis la gaaray xalay waliba waa berigi maanta ayaa heshiiskaasi la gaaray dhankeena marka la eego maadaama inta badan Afrika iyo Turkiga iyo wadamada kale ee gobolka qaarkood ay isku saacad ay yihiin laakiin Mareykanka isaga waxay u ahayd xilli dambe oo jimco ay wali ku jireen marka heshiiskaas waxa uu dhigayaa qodobo aan u cuntamin Hezbollah waxaana moodaa in loo heshiiyay aan kula wadaago macluumaadkaas Lubnaan iyo Mareykanka waxaad moodaa inay gaareen heshiis wada shaqeyn ah kaas oo dhigaya habka loo bilaabayo bixitaanka ciidamada Israa'iil ee koonfurta Lubnaan heshiiska sidoo kale waxa uu wataa lifaaq dhanka amniga ah waxaana lagu heshiiyay qodobada soo socda Israa'iil iyo Lubnaan waxay ku heshiiyeen sida loola tacaalayo godadka ay Hezbollah ay inta badan ay adeegsadaan iyo sidii looga hortagi lahaa in ururka Hezbollah uu dib u xoojiyo awoodiisa dhanka militariga laakiin hanaanka loo marayo qodobkaasi lama cadeynin labada dhinac sidoo kale waxay ku heshiiyeen wada hadalada xuduudda dhanka bari in la sii wado oo ay sii socdaan marka laga hadlayo joogitaanka ciidamada Israa'iil heshiisku wuxuu dhigayaa in ciidamada Israa'iil wali ay sii joogi doonaan koonfurta Lubnaan ilaa laga xaqiijiyo Hezbollah in hubka laga dhigay marxaladan Israa'iil waxay dib ugu soo laaban doontaa gudaha waxay ugu yeerto aaga amniga balse si buuxda ugama bixi doonto guud ahaan dhulka Lubnaan marxalada tijaabada waxa la isku afgartay in la bilaabo laba goobood oo tijaabo ah hal goob waxay ku taalaa waqooyiga webiga Litani goobta labaadna waxay ku taalaa koonfurta webiga Litani goobahan marka ciidamada Israa'iil ayaa ka bixi doona ciidanka Lubnaan ayaa la wareegaya amniga guud ee goobahan dadka deegaankana waxa loo ogolaan doonaa inay dib ay ugu soo laabtaan guryahooda arrin aan hore u suuragelin ayayna noqonaysaa haddii qodobkan la dhaqan geliyo jadwalka bixitaanka marka la eego مسؤولينتي إسرائيل waxay sheegeen in wali aanan la dejin jadwal rasmi ah oo lagu dhameystirayo bixitaanka ciidamada Israa'iil ka bixitaanka oo dhan waxa uu ku xirnaan doonaa in hubka Hezbollah laga qaado ama laga dhigo
arrimaha weli taagan waxaa qaybka inkastoo yacni wadahadalladaasi la sheegay in la gaaray inaan la shaacin goorta rasmiga ah ee barnaamijka tijaabada uu bilaaban doono oo ciidamada Israa'iil ay laba aag ay ka bixi doonaan oo ciidamada Lubnaan ay la wareegi doonaan sidoo kalena wadahadallada laguma sheegin ka hor inta aanan la fulin waxa la qorsheynayo laakiin ciidamada Lubnaan tababar ayaa waxa lagu waramayaa inay heli doonaan marka hore tababarkaas ciidamada Mareykanka ayaa siin doona si ay mas'uuliyadda amniga ula wareegaan ee deegaanka ugu dambeyntii warbixintu waxay sheegaysaa marka in guusha heshiiskan si weyn ugu xirnaan doono doorka cadaadiska iyo kan siyaasadeed ee Mareykanka kaas oo ka qayb galaya hirgelinta heshiiskani sida dowladda Lubnaan ay ugu guuleysatay xakameynta hubka iyo dhaqangelinta qorshaha Israa'iil ay doonaysa ayaana ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee heshiiskan marka la eego marka qodobadan iyo xogta ku jirto macluumaadkan Israa'iil ayaad moodaa in guusha ugu badan ay helayso maxaa yeelay ciidamada isla markiiba kama bixi doonaan dhanka koonfurta sidoo kalena waxay ku xireen in guud ahaan Lubnaan ay ka wada baxaan in Xisbullah hubka laga dhigo waxay qodobada sidoo kale qayb ka ah in yacni tanalada iyo waxyaabaha la midka ah in iyaga ay la wareegayaan marka dhanka Lubnaan macluumaad dheeraada lagama bixin warbixintan waxa qoraya wargeyska Russia Today la yiraahdo waxaana moodaa in qodobada heshiiska kaliya ay dhanka Lubnaan fursad u arki doonaan in ciidamada Israa'iil qayb kamid ah koonfurta Lubnaan ay isaga baxaan wax walba oo ka soo kordhana waan kula wadaagi doonaa insha Allah laagsan muuqaal kale wadaag saaxiibadaada wad mahadsan tahay ugu dambeyntii shabakada la dagaalanka nacaybka islaamka iyo muslimiinta ee dalka Jarmalka ayaa sheegtay in weerarada iyo tacadiyada ka dhanka muslimiinta dalkaasi Jarmalka aad ay u kordheen tan iyo sanadkii 2025 sida shabakadu ay sheegtay waxa la diiwaan geliyay 4096 dhacdo balse waxay ka dhigan tahay in tirada dhabta intaas ay ka badan karto maadaama dadka inta badan aysan dacwada soo gudbin shabakadu waxa kale oo sheegayaan in dhacdooyinkaas ay isugu jiraan takoor nacayb aflagaado iyo weerar diimeed waxaana kamid ah 224 weerar oo jirdil ah waxa xogta lagu ururiyay xarumaha la talinta ururada bulshada rayidka ee 15 gobol oo dalkaasi Jarmalka ah sidoo kale waxa laga soo ururiyay xogta booliiska dambiyada siyaasadaysan iyo warbaahinta sidoo kale waxa wararku ay sheegayaan in dhacdooyinkani badan ay jiraan qaarkood oo aan la sheegin gaar ahaan kuwa ka dhaca iskuulada iyo marka la tacaalayo hay'adaha dawladda ama booliiska sababtoo ah dhibanayaal badan ayaa ka cabsada ama aanan ku kalsoonayn hay'adaha dawladda shabakadu waxa kale oo ay ka digayaan marka in soo noqoshada dhacdooyinkan ay dadku ay ka dhigayaan inay caadi u arkaan wax walba taas oo keeni karta in dhibaatooyinkan ay ka waantoobaan inkastoo ay saameyn weyn ay ku yeelato noloshooda iyo dareenkooda dhanka amniga warbixinta ayaa si weyn looga hadal hayay warbaahinta dalka Jarmalka waxaana lagu xusay talaabooyin ay kamid yihiin gabar lagu weeraray magaalada lagu magacaabo Greifswald waana mid kamid ah magaalooyinka ugu muhiimsan ee dalkaasi Jarmalka oo ay dad badan oo muslimiin ay ku nool yihiin halkaas oo wiilal ay isku dayeen in ay ka siibaan xijaabkeeda gabar isla markaana ay ku caayaan ereyo cunsuriyadaysan sidoo kalena haweeney muslimad 52 sano jir ayaa lagu garaacay magaalada Düsseldorf sabab la xiriira xijaabkeeda waxaana soo gaaray dhaawacyo culus warbixintu waxa kale oo ay sheegaysaa in dhibaatadu aysan ku koobneen weerar jireed oo kaliya balse sidoo kale ay jiraan cadaadis dhanka nafsiga takoor maalinle ah waxaana tusaale loo soo qaatay arday muslima oo ku nool mid kamid ah gobolada dalkaasi Jarmalka oo sheegay in markasta fasalka looga hadlo argagixisada ama xagjirnimada macalinkiisana si gaar ahaaneed uu u weydiiyay aragtidiisa iyo inuu ka tanaasulay tacadiyada afka ah ayaa noqday marka kuwa ugu badan oo gaaray 61% dhammaan noocyada iyo dhacdooyinka la diiwaan geliyay waxaana la diiwaan geliyay 2 dil 214 weerar oo dhanka jirka ah 4 isku day oo dil ah 320 dhacdo oo hanti lagu burburiyay iyo 5 dab oo si ula kac loo qabadsiiyay hanti ay dad muslimiin leeyihiin warbixinta sidoo kale waxay muujinaysaa 64% weerarada lagu beegsaday haweenka muslimiinta halka 34% la beegsaday ragga taas oo ka dhigan marka in inta badan la bartilmaameysanayo haweenka maadaama ay inta badan ka eegayaan dhanka awoodda iyo isdifaacidda maxay kula tahay adiga sababta ka dambaysa in Jarmalka dhacdooyinkan laga diiwaan geliyo aragtidaada nala wadaag laagsan muuqaalka la wadaag saaxiibadaada waad mahadsantahay wax walba oo ka soo kordhana waan kula wadaagi doonaa insha Allah nabadgelyo wariyaha reer Falastiin oo lagu magacaabo Mujaahid Bani Muflah ayaa laga sii daayay mid kamid ah xabsiyada Israa'iil waxa la xiray muddo 12 bilood ka hor bishii June sanadkii 2025
waxaana la sheegay in xabsi uu ku jiray kaasoo ah xabsi maamul xabsigaasoo ah yacni ruux iyadoo oo aan maxkamad la soo taagin in lagu sii hayn karayo taasoo micnuhu yahay in waqtigu uu dheeraan karayo ama uu soo dhowaan karayo laakiin ugu dambeyntii waa la sii daayay maxaa xabsiga gudihiisa ka dhacay oo sawirkiisa ama muuqaalkiisa sidan ka dhigay wariyaha maadaama markii hore sidan si ka duwan uu ahaa sida ay ururka Falastiiniyiinta ee u dooda xuquuqda maxaabiista ay sheegeen waxa lagu waramayaa inuu la kulmay dayacaad dhanka caafimaadka ah waxa sidoo kale la sheegay in cunto iyo daryeel caafimaad oo wanaagsan uusan helin caafimaadkiisana si tartiib ah u sii xumaanayay intii xabsiga uu ku jiray waliba bilowgii waxaad moodaa jirdil xoogan inuu la kulmay taas oo keentay in isaga oo warbaahinta la hadlaya uu si cad u sheegay in yacni xurriyadii laga qaaday uuna markii ugu horeysay arkay in ruux ama shakhsi isaga la mid ah uu maamulayo isaga taasoo kala jeedo waqtiga uu seexanayo waqtiga uu wax cunayo waqtiga uu soo kacayo waqtiga uu istaagayo waqtiga uu fariisanayo waqtiga uu hadli karayo waqtiga intaasoo idil in loo kontroolayay ama la maamulayay ama la socday sidii isagaba uu warbaahinta u sheegay markaasi kadib waxaa lagu waramayaa in markii la sii daayay dhiigbax maskaxeed uu ku dhacay waliba 2 maalmood oo kaliya kadib markii la sii daayay dhiigbaxaasi dhanka maskaxda markii ku dhacay isbitaal ayuu galay qalliin ayaa lagu sameeyay taas ayaa waxay dhaqaatiirtu ay sheegeen markii inay keentay xaaladiisa caafimaad inay halis ay gasho maxaa madaxiisa sidan ka dhigay waa su'aasha ugu mudan ama ugu muhiimsan ee la isweydiinayo maadaama isbedel weyn uu ka muuqanayo wajigiisa iyo xitaa maskaxdiisa warbixinada dhanka caafimaadka waxay sheegayaan in dhaqaatiirta ninkan ay ku sameeyeen wariyaha ah qalliinkaas ayaa lagu waramayaa inuu keenay in laga saaro qayb ka mid ah yacni lafaha dhanka madaxa si loo yareeyo cadaadiska dhanka maskaxda dhaqaatiirta ayaan arrimahaas u daynaya oo aad u yaqaana ama aad u garanaya laakiin macluumaadka aan kula wadaago iyo waxyaabihii laga qoray madaxiisa markii dambe waxaa la sheegay inuu sabab u noqday in dhinac yar yacni uu godmo gaar ahaan dhinaca bidix sida muuqanaysa tanina Israa'iil waxay ku tilmaamtay inaysan ahayn dhaawac yani xabsiga gudihiisa loogu geystay waxay sheegeen inuu la kulmay dhaawacan ama dhibaatadan uu la kulmay markii xabsiga uu ka baxay laakiin isaga wuxuu ka sheekeeyay tacadiyada korontada dhibaatada leesu geysanaya inta xabsiga lagu guda jiro sidoo kale wajigiisa waxa ka muuqanaya guud ahaan jirkiisaba isbedel aad u weyn iyo inuu miisaan u lumiyay qalinkii madaxana wuxuu keenay yani isbedelkan aadka u sareeya ururada marka maxaabiista Falastiiniyiinta u dooda waxay yiraahdeen ninkan dayacaad caafimaad ayuu la kulmay gaajaysiin ayaa uu la kulmay looma ogolaanin daawo inuu helo isagana wuxuu sheegay koronto iyo dhibaatooyin kaleba in loo geystay intii xabsiga uu ku jiray wuxuu noqday marka muuqaalkiisa iyo sawiradiisa midka loogu hadal haynta badan yahay toddobaadkii la soo dhaafay oo shalay iyo maanta marka la isbarbar dhigo isbedel weyn ayaa ka muuqanaya wariyaha reer Falastiin